بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وايد والسلام يا مقعي ماموس كاميش قوة فلسطين. مركلات وحادي الله يسود هذا. هذا توسو جود قلق. قولي السما مركه هراء وحارة فكرة إن عندي كسيو. وحالة أساسي كود لولي 2016. meeshaas waxaa idin kaga muuqato inta sano ee shaqeynayso ahdaafta ugu muhiimsan ee loo aasaasay xaruntan waxay ahayd in burburka bulshadeena ee soo socday ka haystay dhanka qoysaska Soomaaliyeed inaan u istaagno ka dhalinyaro ahaan anagoo aysan jirin cid gooni ah ee lagu riixayso ama dana gaar ah aan ka wadanin in qoysaskeena hadda u fiirsatid inna waa isqabaano qabitaan magaca guud ah iska qabaa laakiin waxa ka dhex jiro dalaaq caatifi wax la dhaho oo habeenkii isku soo hooyada ilmahaas la kala dhalaa danahaas la isku fiirsadaa inta kalena waa iska buu u badan yihiin hawlaha ugu muhiimsan ee xaruntan ay qabato waxa ka mid ah tababaro in ay siiso dhalinyarada Soomaaliyeed hooyooyinka ragga Soomaaliyeed bulshada qaybaheeda oo dhan talooyin in ay siiso iyo wacyigelin iyo qaybta hadda amaanta meeshaan aan joogno tabantaabo qaybta tabantaabada waxaan ka soo shaqeynaynay ilaa maalinta la soo aasaasay ilaa iyo hadda sanduuqa seeto oo loogu talgalay in loogu aruuriyo lacag isla markaana lagu garab istaago dhalinyarada Soomaaliyeed ee guurdoonka haddii bulshada laga hadlaayo ama baahiya badanaa waxaa la dhahaa waxaa tihiin dhalinyaradii biri dhalinyaradii mustaqbalka maantana waxaan taaganahay maalinteeni waa maalinta dhalinyarada haddii marka baahidii ee dhalinyarada ay qabeen ee isla dhalinyarada u istaagin cid kale oo u istaagaysa ma jirto bulshada markii laga hadlaayo waxaa la dhahaa boqolkiiba 70 waa dhalinyaro isla markaana 70kaas waxaa la saaraa waajibaad laakiin su'aal isweydiinta mudan waxay tahay waajibaadka waxaa ka horeeyo baahiyaha gaarka ah ee dhalinyarada lahaayeen ma heleen baahiyahaas waxaa ugu muhiimsan oo hadda badanaa loo ololeeya waa shaqo shaqadan waxaa kasii muhiimsan inay helaan dhalinyarada dhowrsanaan iyo cifo iyo degnaansho taas laba dhanba faa'iido way u tahay bulshada kufsiga soo badanayo baryahan dambe ee dhalinyaro ah arkaysid geysanayaan waxaa isleeyahay qayb ina anaga ka nahay hadda ka hor waxaa rabaa sheekeer inaan idiin sheego dhagaxa maxay ahayd waddo uu dhex yaalay waddada waxaa soo maray nin oday ah nin madax ah dad badanaa waddadaas soo mareen dhagaxii cid ka qaado oo garan weysay intooda maysan ku jirin oo nin walba wuxuu dhahay dhagaxa meesha wuxuu u yaala maxay tahay dhagaxa maa meesha laga qaado war inkaar qabaa dhagaxan waddada noo dhig muxuu ahaa ugu dambeyn nin dhalinyaraa soo maray dhagaxuu arkay dhalinyaro kaloo u wacday dhagaxiyaa meesha laga qaaday dhagaxii hoostiisa waxaa laga helay sanduuqaas ay ku qoran tahay waxaa garatay mushkiladii waddadaas haysatay abaalmarintan dahabkan adaa iskale maxallo shaahidka ama ahmiyadda sheekadaas aad kugu sheegayo waxay tahay baahi markay jirto ama mushkilad markay jirto waxaa la rabaa cidda mushkiladaas ee mushkiladu ku tahay ayaga inay u istaagaan waxa meeshaan maanta isku kaaya keenana waa in sanduuqaas tabarucaada ee loo sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed dad badan ayaantan waxay ahayd Facebook iyo waxa arkaysay musharaxiin badan oo maxay ahayd ku dooro raaliyanimo iyo ku dooro biil joogto iyo aad u mahadsan yihiin dhalinyaradaas laakiin waxaa rabaa in ay maxay ahayd si cad aan u sheegno dhalinyarada waa sax dhalinyarada waa la sii kala yahay dadka ugu horeeyo ee sanduuqan aan ugu talgalnay waa dadka danaha ama baahiyaha gaarka qabaan dadka baahiyaha gaarka qabo aan rabnaa inaan ku bilaabno kadibna dhalinyarada meesha kama marnayaan xanaaqin waa kusoo xigtiin dadkaas aan rabnaa inaan ku xijino markii guri la dhisaayo ama hal qol ha ahaado ama meel yar markay ahaato qofka guriga asma samaysto waa may wuxuu aadaa engineer ama wuxuu ka qaataa fikir si maxay ahayd talo loo siiyo ama qoon loo siiyo anaga hadda dad badan waxay isweydiinayaan ama waxay dhahaan
dada isku guurinaysiin birina waa la isfuraa maxaa ka shaqaynaysiin shuruudaha ama waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadkaas lagu xiraayo ma ahan inuu qofkan lacag haysto ama inuu shaqaynayo laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay ka hor guurka waxaa jira training ee xarunta ugu talgashay dadkaas nasiibka ugu soo baxo dadkana kuma kala dooran doono 4.5 iyo maxay ahaatee waxyaabo kaloo kala duwan waa sida hadda idin sheegnay dadka baahiyaha gaarka qabaana ka bilaabi doonaa kadib dhalinyarada kusoo xigto waxaa rabaa ayagana inaan fariin qaasa u diro xaasalayaasha heestaan 2 xaas iyo 3 xaas iyo kuwa ka badan sii raadinayo waxaan rabaa inaan dhaho waxaa jiro wax la dhaho iithaar way ukthiruuna calaa anfusihim qur-aankaana dhahaayo waa walaalkaa inaa u hurtid waxa aa naftaada la jeceshahay haddii aa haysatid xaas wanaagsan hadalka si kalena yaa loo tacriifin haddii aa haysatid xaas wanaagsan oo baahiyahaaga kuu dhammaystirtay walaalkaa oo baahanaa jiro isla baahidaas u baahan waa inay ragga soomaaliyeed ee u gartaan kana bilaabaan culummada khaasatan si loogu daydo waa inay u guuriyaan ee dhahaan nafsadeeda waxaan la jeclaaday walaalkii oo kale inuu u guuriyo aabbaha waxaa loo baahan yahay inuu ilaaliyo ama mas-uuliyad ay ka saaran tahay cifada caruurtiisa waxaan soo dhaweynayaa marka dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan soomaali weyn ay ugu horeeyaan dhalinyarada soomaaliyeed maadaama arrintan ay tahay arrin dhalinyaro baahideeda qabtireyso inay ka qayb qaataan culimada soomaaliyeed aqoon-yahanada hooyooyinkan si gaara ugu mahad celinaya la-aantooda haddaysan ahaan laheen lama soo gaari lahayn halkan iyo hooyooyinka aabayaasha garabka siiyo ganacsatada sidoo kale iyo ugu dambeyn dowladda soomaaliyeed watacaawanu cala albiri iyo mar hore la dhahay allah subxaana watacaala teeda kalena waxaan dhihi lahaa cid walba ama qof walba oo jecel inuu qoys yagleelo wuxuu u baahan yahay aqoon maa buniyat binaaun waxaa la dhahay acdamu wa ashrafu min taswiij rasuulka sal alla alay wasalam saas buu dhahay guri ka qayr badan kana sharaf badan ma jiro guurka dhammaanteen sidaa u dhannahay waxaan doonayaa inaan wada istaagno isku si aan ugu qayb qaadano si dhibaatooyinkeena u yaraadaan awoodda dhalinyaradana aan uga faa'iidaysano